Okay, midda koowaad aad samayn karto waxa waaye horta hore waa inuu qof kula joogaa. Ciyaarta kusoo dhawaada channelkii dhammaan dadkii hore la socday iyo dadka cusub dhammaantiin soo dhawaada. Okay, maanta sabti waaye 28 aan galay, laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo 27 weeks waxaan la soo kulmay. Kara lahaada maanta oo kale aan videoga soo dhigaa, laakiin aad aan u mashquulay oo shaqo aan ku mashquulay, sidaas darteeda waqti waan heli waayo aan kusoo duubo. Gabdho badan su'aalo badan ay weydiiyaan, waxyaalo badan ay rabtiin inaan isoo dhigo, waa isku dayayaa. Marka su'aalaha kulli kama jawaabi karo, video mar walba ma soo dhigi karo, laakiin waa isku dayayaa inaa informationo niisiyo oo idin caawiso. Maanta rabay inaan ka bilaabo oo aan ka hadlo 27 week waxaan aan la soo kulmay, aan raba inaan ku daro gabdhaha ciyaalka dabakeenka, breech baby Soomaali dabakeen in la dhaho malena cuniga markuu macnaha dhalistaada usoo dhowdahay oo cuniga meeshii la rabo madaxiisa inuu fooraro isku diyaariyo, positionkii la rabay uusa ahayn oo lugihiisa oo hoos ay yihiin. taasa raba inaan ka hadlo waxyaalaha kaa caawin karo marka haddii lacala macnaha situationkaas ku jirtid. Marka okay, 27 week maxaa la kulmay? Horta dhabar xanuunka waa ka roonaaday sida suunka usoo gatay. Markaa shaqeynaya suunkaas mar walba xiranahay oo sidii hore dhabarka iyo xanuunay suunkaas way caawiyaa ilaa caloosha ilaa dhabarka dhan oo waxa maleysaa inuu haayo. Marka mana isku adkeeyo oo wax yar waa dabciyaa, laakiin waa dareemaa inuu support gareynayo. Madax xanuun yaraa dareemay weekan, waxaa dareemay mamacaanka inaa aad u rabo, sidaas darteeda fina iga soo baxday meeshaan. Marka finana isku arkay oo tan waa midii labaad aan isku arkaayo, midda kale waa iga baaba'day, laakiin tan xoogaa waa loo jeedaa wax yar. waxa kaliya iga soo kordhay waa wejigayga oo macnaha laba fin ka soo baxday. Waxaan u maleynayaa mamacaanka inay keenayso, sababta weegan mamacaan u badan sida weega hore oo kale. Marka wax kaloo hadda igu soo kordhay ma lahan. Sida idin sheegay weli waan sugoyaa sokorta la iska qaadayo oo gabdhaha laga qaado uurka leh. waa talaadada u maleynayaa, waa December 22 talaadada inay taa u maleynaa aan galaya, iyadana waan iisoo sheegaa waxaan la kulmo. Marka wax saasay lama kulmo aan ahayn inay finan iga soo baxday. Marka okay, waxaan natusaa cuniga 27 weeks intuu la egyahay fiirsada. Okay, waxaan rabaa inaan ka hadlo cuniga dabakeen markuu yahay, sorry hadda Soomaaliga si sax ah ugu dhahaynin, breech baby hadduu yahay. Waxaa jiro dad professional ah oo shaqo ku leh oo kaa dhalin karo. Marka dadkaas haddaa heli kartid macnaha raadso oo aqoonta u leh oo ciyaalkaas oo markay saas kala noqdaan waqti dhalistaada oo kaa dhaliyo. Haddii kale waxay noqonayaan waxa hadda sii diyaarinin in markii ugu dambeysay oo dhalistaada la gaaro in lagu qalo cuniga inay u badato laga yaabaa. Marka haddaa heli kartid samee. Okay, 3 shay jiro isku dayi kartid oo sameyn kartid oo cuniga macnaha hadduu dabakeen yahay oo kaa caawin karto. Marka laakiin intaad sameyn ka hor haddaa chiropractor heli kartid, chiropractor Soomaali waxa lagu dhahaa makasay irbaaxo ma ogi, laakiin haddaa heli kartid dadka waxa waaye jirka ku shaqo leh, haddii laftaada ama murqahaada wax ay toosneen xagga laf dhabarka iyo dadka toosiyay waaye oo professionalka oo kaa caawinayo. Marka dadkaas haddaa heli kartid inaa u tagtid chiropractorka
oo kadib horta hore ay ku fiiriyaan inuu laakiin waxaa la rabaa chiropractor-ka oo macnaha shaqo kule naagaha uurka lahaa la rabaa chiropractor oo dhan naagaha uurka leh jirkooda macnaha ma kasayaan marka mid kasayaa la rabaa naag uur leh jirkeeda marka kuwaas chiropractor-kaas u tagaya horta hore waa fiirinaysaa inuu horta hore miskaaga meeshaan dhan lafta miskin lagaa maleyna intaana dhan wareega inuu horta hore siman tahay sintaada meelahan oo dhan inay siman tahay sida maaragtay cuniga markaa sinta mar walba ku haysid adi dhan waxaa u malaysaa inaa simanta laakiin ma simnid labadaa lugo haddaa isku fiirisid macnaha ma toosno xoogaa dhinacba oo waxaysmaysa laakiin haddaa chiropractor-ka tagtid ay ku fiiriyaan way kuu sheegi karaan hadduu jirkaada macnaha siman yahay oo positionka la raba ay taagan yihiin marka aad taas tagtid soo ogaatid inay okay tahay baa saddexdan shay samayn kartaa oo intii dhalistaada ka gaaraysid oo tijaabin kartaa okay midda koowaad aad samayn karto waxaa waaye horta hore waa inuu qof kula joogaa ama ninkaada ha noqdo ama qof oo hooyadaha ha noqoto ama qof saaxiibkaa ha noqdo friend aad tihiin adiga waa inuu qof kula joogaa soo marka positionkan sawiraad idiin soo gelinaa saa u aragtiin gabarta waa ujeedaa sariirta ay koraysaa waxaa la rabaa marka alaabta hadhow markaa sariirtaada kortid oo markaa foorarsanaysa alaabta ku cuskanaysa waxaa la rabaa alaab dhaqaaqi karin inay tahay haddii kale waa khatar haddaa wax oo dhaqaaqayo aa cuskatid oo kula baxdo adi dhan wejiga iyo calooshi khatar waayo dhibaato weyna kuu keeni kartaa marka waxaa la rabaa wax aad dhaqaajin karin oo adag oo culus macnaha sida sawirkan oo kale aan idiin soo geliyay gabarta alaabtaasaa dhiganaysaa meesha waxaa dhaqaajin karin inay tahay la rabaa oo safe iska hubisay qof waa inuu agtaada joogaa lacala haddii wax si noqdaan ku caawin karo marka kaasaa dhiganaysaa kaas markaad dhigatid sida gabartan oo kale waa foorarsane markaad foorarsatid adig ilaa iyo 30 second ilaa iyo 1 minute asaas ahaane marka waa inaad jirkaada dhagaysataa jirkaada haddii oo aad daashid ama aad culays noqdo ama samayn karin ama wax jirkaada mar walba dhagayso waa inaad soo kacdaa markaad soo kacaysa haddaa culays tahay oo ilaa qasab waayo uura leedahay waxaa laga yaabaa mar inaad soo qaadi karin marka waa inuu qof ku caawiya oo kusoo qaada waa midaas waay marka bahashaasaa dhiganaysa waa inay xoogaa kor tahay midda labaad aa idiin soo gelinaya sawirkan kale waaye bahal haddana xoogaa midkii kale wuu koreeyey ma ogtahay mid kale xoogaa kasii hooseeyo baa haddana tijaabinaysaa saas oo kale 30 second ilaa iyo 1 minute aa isku daya inaad ku hayn kartid saas sida gabartan ay samaynaysa oo kale markaa isku daydid waa inuu qof kula joogaa ogaa waa inaa waxa ku samaynaysidna ay safe yihiin please taas horta maskaxdaada geli inay safe tahay wax inaad iska soo qaadato kursigan waa ku samayn karaa hadhow kursiga kula taraaraxo khatar waayo ma rabo inay dhibaato kusoo gaarto laakiin inaan ku caawiyin waa rabaa marka wax culus adag saas oo kale gabartan ay samaynayso ku samee qofna mar walba inuu kula joogo wax walba dhici karo waa inuu qof kula joogo mar walbana jirkaada dhagayso haddaa adoo 5 second samaynaya oo aad si kala dareentid ama wareer ama wax kale soo noqo tartiib ha isdhibin okay midda saddexaad oo kale waxa waaye sawirkan haddana aan idiin soo gelinayo meelaa seexanaysaa oo adag sida kursigan gabartan ku jiifto oo kale oo dheer markaad seexatid 2 barkimo aa hoos gashanaysaa saasa ahaane marka waxaa laga yaabaa indhahaada xoogaa inaad si kala dareentid because dhiiga dhanaa kor aadayo maskaxdaada mogta marka xoogaa saan tahay oo barkinna 2 barkin oo hoos dhigatay 1 barkinaa fiirinay hadday ku anfici weys 2 fiirinaysaa bis kadib adiga ilaa 5 daqiiqo meelahaas saas ahaanaysaa haddii wax aad dareentid ee ku dhibayso horta gabdho saas sameeyo waxay dhaheen comfortable waaye dhib ma ahan laakiin haddaad dhib dareenta ama si kala dareentid jirkaada mar walbo dhagayso marka positionkaas ood aad jiifto oo barkimaha hoos dhabarkaada meeshaan aad gelinaysa sida gabarta sawirka camal waxaa ku haynaysaa 5 minute ilaa iyo 10 minute aa ku haynaysaa marka badanaa waxay sameeyaan hablo waxaa oo umuliso iyo wax la xiriiraa jiro oo
la joogo markaas oo kale oo cunuga wadnihiisa fiirinayo mar walba sababta waxa laga yaabaa dhabarka aad hadaa cabaar ku jiiftid marmar ciyaal dhibaysaa jiro oo macnaha oo stress u keenayso marka wadnaha marka bahal waxay wataan ku fiiriyaan cunuga wadnihiisa hadhow waxay hubinayaan in hooyadan okay tahay cunugana okay yahay marka haddii adiga ultrasound aad tagtido ilaa ultrasoundka markaad tagtid dhabarka badanaa kuu seexinaya cunugaadana waa arkaysaa mogtahay haddaa isleeda cunugaada dhabarka xoogaa ku jiifta ma dhibayso dhib ma laha marka taas samee barkimo gasho hal barkin fiiri hadday ku qancin weyse barkin kale labaad geli fiiri dhabarkaada marka xoogaa 5 minute ilaa 10 minute saas positionkaas u jiif mid kale jirto oo dad oo iyagana shaqo ku lahoo masaajeenayo calooshaada minka say u masaajeenayaan wax inay mariyaan ay masaajeenayaan kadibna cunuga ay wareejinayaan way toosinayaan positionkiisa ku toosinayaan kaas waxaa la dhahaa waa 75% marmar waa shaqaysaa oo 75% waaye marmarna waxaa laga inay kuu shaqaynin taasna waa tijaabin kartaa haddaa heli kartid marka waxaasoo dhan sii raadi hadda isku sii diyaari hadday dhalmistaada soo dhowdahay isku diyaari raadi ogaaw waxaan kale hadda aan kuu sheegana tijaabi laakiin haddaa waxaan aan kuu sheegay tijaabinaysid please si safe u tijaabi qofna ha kula joogo keliga ha dhihin qofna ma haystaa qofna ilama jooge waa sameynaya dhib ma laha ha dhihin dhibaato iyo adna kusoo gaarin cunugaadana soo gaarin marka safetygaada aad u fiiri safetyga cunugaada waa mid aad kaala dardaarmayo oo macnaha inaa wax markaa sameynayso qof kula joogo waaye qof uur lahaa tahay waa culus tahay jirkaada sidii hore ma ahan wuu isbedelay marka please qof ha kula joogo haddaad sameynaysid arrintan oo isleedahay cunuga positionka toosi mideeda kalena horta hore waa inuu ultrasound lagu soo saaray oo lagu dhahay cunugaada dabakeen waaye adoo hubin oo cunugaada dabakeen ahayn waxaan ha iska sameynin haddii oo 36 weeks aad tahay oo lagu dhahay cunugaada dabakeen waaye dhalistina kuusoo dhowdahay markaas waxaan waa tijaabin kartaa waa sameyn kartaa laakiin waa inuu qof kula joogaa marka maanta halaasaan rabay inaan nila qaybsado oon kusoo daray wiigayga caadiga ahay aan waxaan wax dheeraad ah nigu soo daray marka waxaan rajeynayaa gabdhaha u baahan inay ka faa'iideen okay wax kala raba dheeraada rabaa inaan sii raacsiiyo wiila horta hore waxaa maleena markii labaad ama saddexaad weydiinaya waayo dhahayo wax ninka ku saabsan maa noo soo gelisay okay meesha waxaa uga hadlayo waa uur iyo hablaha gabdhaha waxyaalo aan uga caawin karo iyo waxyaalo aan ku kala faa'iideysan karno oo uurka ku saabsan aan soo geliyaa marka uurkayga ay la socdaan iyagana waxay su'aal qabaan hoose kusoo qoraan hoose lagu kala faa'iideystaa laakiin haddaa xaas leedahay tan waa la sameyn kartaa oo hadda aan rabo inaan idin sheego marka gabdhaha nimankooda la joogo dhan waa sameyn kartiin okay hadduu ninkaada kula joogin dhib ma lahan waxaa la sameyn kartaa hooyada hadday kula joogto waxaa la sameyn kartaa qof gabara saaxiiba tihiin aa la sameyn kartaa laakiin maadaama wiilkaas oo weydiiyo uu dhahay nimanka macnaha arrin wax ku saabsan soo geli okay tan la sameeya haddaa xaas leedahay barafsaan camal u eg waa soo bixinaysiin markaa soo bixisiin meelaa saaraysaa asigana wuxuu timer uu sameynayaa uu ku ilaa 90 second al rabaa inaa ku haysid barafkaas gacantaada okay marka uu ku time gareynayaa macnaha telefonka 90 second uu ku gelinaya inaa hayn kartid marka barafkaas ma sii dayn kartid ilaa uu ku dhaho waqtigaada way dhamaatay ada ilaa qofka la sameynayso ku dhaha 90 second way dhamaatay gacanta ku haynay okay waa fiirinaysaa sidaa dareemaysid 90 second ka haysa barafka sidaa dareemaysaa fiirinay marka hadda waxaan rabaa inaad gabaray maskaxdaada aad dejiso oo aaminto oo cabsida ka saarto okay badanaa gabdhaha oo weli siiba gabdhaha oo hadda ku cusub cunugooda koowaad oo wado walaalo isdeji okay maskaxdaada deji maskaxdaada hadda sii diyaari bar inaad dejiso okay
because badana anaga marka oo macnaha cunugeyga koowaad intaa dhalin waa laga cabsiinaya dhalista xanuun waayo horta xanuun la-aan ma dhalaysi laakiin way kala roon tahay markaa maskaxdaada diyaarisid iyo jirkaada iyo markay diyaar ahayn oo iska geshid meesha labay kala tahay marka waxaan rabaa maskaxdaada inaa hadda sii bartid oo controlshid oo dejisid oo bartid macnaha xanuunka iyadoo jirto haddana maskaxdaada waxaad bari kartaa inaa isdejisid marka midda labaad aad sameynaysid ku sheega barafkiyaa soo qaaday okay barafka intaa soo qaadin horta hore google sawir qurux badan meel qurux badan aad jeceshahay inaa joogtid aad gelinaysaa macnaha oo saan oo kale sawirkii adoo fiirinayo oo tartiib isdejinayo oo imagine gareynayo adoo meesha joogo qoraxda kugu dhacayso meesha iska fadhiyo wixii adoo macnaha maskaxdaada saas aad ku jirto waxaa bilaab barafka qaadaysaa markaa qaadid maskaxdaada barafka dhan waa ka saare adoo meeshaas joogto meelaa jeceshahay oo kugu dhacayso qoraxda oo ciidda aad dareemayso lugahaada inaa adoo ku socdo adiga waxaasoo adoo u jeeda maskaxdaada barafka gacantaada ku hanay waa qaybta labaad barafka adoo ku hayo baa waxaasoo dhan waxaa fiirinaysaa bis adoo meesha aad jeceshahay joogto oo raaxaysanayo barafkiina gacantaa ku haysaa qofkii kula joogane 30 second uu kuu qabanaya marka ma dhigi karti ilaa ku dhaha timeka way kuu dhamaatay marka gacanti koowaad 90 second aa ku qabanay gacanta labaad 30 second aa ku qabanay waa tijaabinay 30 second laakiin markaan waxaa tijaabinay adoo sawir macnaha maskaxdaada meel kala saartay oo barafka aa ka fikiraynin maskaxdaada sawirkaas leh adoo ku maqan sawir jecesha meel jecesha adoo ka fikirayo oo fiirinayo gacanta ku qabanaysaa okay 30 second kaas fiirinay waxa isoo sheegaysaa marka sidaa dareentay marka midda koowaad sameysay iyo midda labaad okay hoos ayuu soo qoray okay midda saddexaad waxa waaye ninkaada si aad jecesha soo dhabarka ku riixay masajeenayo ba haddana waxaa qabanaysaa 30 second kale haddana gacanta ku qabanay markaa ku qabatid adoo ka fikirayo meesha jecleed adoo joogo oo raaxaysanayo barafkiina gacanta ku haysid ninkaadana waxaa dhehaysaa iiri riix dhabarka sidaa jecesha kugu riixaya mafahamid ninkaad qasab maahan saa kuu sheega ama walaasha ama hooyada qof ku riixaya laakiin waxaa ku fiican tahay ninkaada haddaa heli kartid inuu ku riixo taasaa tijaabinaysaa 30 second aa qabanay waa dhigaysaa marka haddana waxaa fiirinaysaa saddexda qayb aa samaysay sidaa kala dareentay marka hoos igu soo qor oo ila wadaag okay gabdhaha oo hadda cunugooda koowaad wado siiba walaalayaal sheekooyinka cabsida dhalista ha fiirsanina okay mani dhahay waxaasoo dhan iska xira laakiin waxaan rabaa maskaxdaada inaa u diyaarisid adiga dhalistaada okay inaa iska cabsiisid maraba cabsida iska saar adiga dhalistaada ka fikir waxaan rabaa inaa fiirsatid video oo gabdho badan si fudud u dhalay video wanaagsan video positive sheekooyin positive waxaas dhageysta hadiga adoo uur leh oo dhalis isku diyaarinayo ha iska sii cabsiin waxyaalaha cabsi waxaas fiirsan maskaxdaada hadda sii bar inaad dejiso oo hadda waxaan ku soo sheegay aad sii sameyso exercise kaas macnaha inaad sii sameyso maskaxdaada hadda sii bartid aan rabaa mideeda kale waxaan rabaa inaa iska dhaafto haddaa qof fadhi badan tahay fadhiga inaa iska dhaafto oo aad socod badan sameyso ama exercise aad sameyso yoga way fiican tahay laakiin yoga markaad sameynayso waa inaa jirkaada dhageysataa walaal wax markaad sameynayso haddii ku dhibayso waa inaad joojisaa jirkaada marna ha qasbin mar walba jirkaada dhageyso yoga markaad sameynaysid meel waxaa ka bilowdaa fudud beginnerska ka bilaab tartiib easy meel beginners markaad ka bilaadid haddii aad dhibsanaysid jirkaada ha ku sii wadin wax dhib oo ku dhibayo okay
so yoga samayn kartaa, socdaa samayn kartaa, haddaad dabaal jeceshahay oo heli kartid oo dabaal ka siisid dabaalaa samayn kartaa. waxaasoo dhan way ku caawinaysaa. mideeda kale jirkaada wuxuu leeyahay xanuun baabi'iyo oo dabiici ah oo oxytocin hormonka la dhahayo, waa hormonka jaceylka. marka jaceyl dareemaysid sidoo kale hormonka jirkaada macnaha uu kusii deynaa dareemaysid oxytocin aa la dhahaa. taasoo kale ninkaada kasoo qaad markaad dhalayso kale hadduu kula joogo baala waayo oo macnaha hab ku siinaayo oo maanta dhan macnaha kaa warqabo ku keergareynayo oo waxyaala a jeceshaa dhegta kugu sheegayo, macnaha cuniga jaceylkii awalka hore calooshaada geliya ah haddana kasoo saari karo, waa haddaa heli kartid. marka maskaxdaada isku diyaari, jirkaada isku diyaari, waxyaalo badan oo kale oo niisii diyaarin karo ni caawin karane waa idiin soo gelinayaa. laakiin hadda halahan nila qaybsanaya, halahanaana macnaha idiin sheegaya. marka halahan sii tijaabiya oo fiiriya, waxaa kala kulantiin hoos igu soo qora. marka waa ka saamahsantiin walaalayaal. wiilasha fiirsado oo xaasaska leh please gabdhihiina u naxariista, jaceyl badan tusiya, keergaree support badan tusiya. waqtigaanoo kale gabarta markay uur leedahay waxay u baahan tahay jaceyl, support, care, naxariis ay u baahan tahay. ma fududo uurka dhalistana ma fududo. marka exerciseyadan ay nila soo qaybsaday la sameeya. jirka dabiicigiisa waxaa jiro xanuun baabiyo uu sameeyo sida oxytocin aan iisoo sheegay, hormonka jaceylka. mideeda kale haddaa mar walba xaaskaada ka qoslisinaysa sidoo kale taasna way ka caawinaysaa markay dhalayso. macnaha inta dhalista markay joogto istaalka oo kale isku diyaarinaysa maskaxdeeda exerciseyadan soo sheegay oo kale ay sameynayso, waxaa la rabaa adigana inaad ku caawisid oo ka qoslisid, ka farxisid oo dhegta waxa ugu sheegto waxyaalaha jeceshahay aa u samaysid si oo macnaha ugu fududaato dhalisteeda. marka halaasaa la qaybsanayaa wiilasha, maadaama wiil aan sidaa niisoo sheegay marar badan oo dhahay wax wiilasha ku saabsan soo geliy. wax wiilasha ku saabsan maaha, laakiin waa wax ay ka qayb qaadan karaan fiidiyoyaasha aan soo geliyey oo gabdhaha aan usoo geliyo oo xaasaskooda ay ku caawin karaan. waa hadday xaasas leeyihiin, haddii kalena waxbay hadda ka baran karaan oo markay xaasas yeeshaan ee u samayn karaan. waa mahadsantihiin. okay, gabdho badan ay weydiiyey walaal meeqa ciyaalaa kuu joogto, meeqa sanay jiraan? okay, hal gabara haystaa oo 3 jir ah. cunigan kale aawadna waxaa la dhahaa waa gabar, iyada waxaa dhalaya march 13keeda meelahaasaa lagu qiyaasay inaa dhalayo. marka gabartan dhalo march 3 bilood kadib gabarteedana 4 sanay gelaysaa. marka waxaa rajaynayaa inaan su-aashiin idinka jawaabo. okay, su-aalo badanaa liisoo weydiiyaa kama jawaabi karaa la ahaado. gabar kale xataa isoo weydiisa video manoo soo gelin kartaa oo faa'iidada ay leedahay waxa ciyaalka iskaga celiyo sida birth controlka oo kale ama khasaarada leedahay. waa isku dayayaa inay video ka sameeyo oo idiin soo geliyo. waqtigii cariiriyo igu yahay runtii wax badan igu furan, laakiin waan isku dayaa inaan soo geliyo. haddana waxaa idin tusayaa caloosheeda intay la eg tahay. fiirsada. okay, saan uga egyahay caloosheeda. soonka saa u xirtay waa isbedel maa ka dareenteen caloosheeda mise waa sidii hore leh? maxay nila tahay? okay, waa kana marka kor u qaado waa kaasaa. isbedel maa ka dareenteen mise sidii leh waaye? hoos ka soo qora. waa kaas. cunugteeda hadday harantinoo soo dareemoyaa, laakiin looma jeedo. wax yar dhag dhag
dareemaya inay siinaysa وكاسا خيارتا ومحسنتين كومنتيغا aan ku kala faa'iideysano waxa nila tahay hoos igu soo qoro waxay su'aalo kulli hoos aan ku kala faa'iideysano week dambana waxa idin soo gelinayaa 28 weeks waxyaalahan la kulmo ay idin soo gelinayaa marka halahan ku egta 27 weeks see you next time حكي قرح ذاته مياي حبي عيد كلام معاك وحقيقي كرتا معاك